السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاسيدا كلو كلو ريين وها خيرين يو الرياضي يو سودوين يشرفهم بدل سداد يطبق مي يو تاغن madax banaanideena iyo gobonnimadeena u taagan iyo midnimadeena baa mudan maanta inaynu ku reereyno u cayaaro u dabaaldegno waanay dhacdayo ciidamadiisaa ka marayay kuwa bulsho iyo kuwa ciidamo qaran iyo dadweynihii gobolada wararka soo noqonaya wasiirka arrimaha gudaha ee guddiga qabanqaabaduna ka warbixinayay intuba waxay muujiyeen inay daafacaadda qarannimadooda diyaar u yihiin inay u dhimanayaan inay horena dad ugu dhintay maantana ay diyaar u yihiin inay u dhintaan wax ka weyn oo la doonaa ma jiro aad bay u mahadsan yihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaase isleeyahay khudbaddii saakay madaxweyne tii guddoomiyaha guddiga qabanqaabadu bixiyey way inoogu filan tahay iyo guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq ee ka dabageeyay caawaba aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa u bogaadinaya aad ba u mahadsan waxaan niyar isleeyahay caawa waxaa laygu lahaa waxaa layleeyahay mucaaridkii waa inaga maqan yihin waxaynu inoo wanaagsanaan lahayd oo gobollada iyo xaggaasay u qaxeen waxay inagala wanaagsanaan lahayd iyagoo caawana tan inagala qayb gala munaasibadda weyn ee heer qaran ee caasimadda beriya wixii ka dambeeyana wada jir iyo kala jirba aynu dadweynaha iyo gobollada soo mar oo gacanta marina igala qiimay iyo qaayaba badnaan lahayd cadhadaa maanta ha muujiseen aarilmaadareyaale waxay inoo celinina dib bay inoo dhigaysaa haynoo celinina waxaa kale oo aan jeclahay xusuud mudan in soomaaliya maanta dowlad cusub dhisatay xasan sheekh maxamuud u dooratay madaxweyne waxaan isaga leenahay iyo madaxdiisa kaleba waar walaalayaalo colaaddii aad dadkiinna geliseen ka saara idinma hayno colaad wanaag baannu idinla jecel inaad midowdaan oo gacmaha isqabsataan oo dullinimada ka baxdaan baannu idinla jecel idinkuna waa inoogu duceeya horumarka iyo qarannimada iyo walaaltinimada iyo jacaylkaanu gaadhay dadweynaha reer somalilan waxba bogaadinigama baahna waa soo jeeda waxaasaan leeyahay aynu wada ilaashanno madax bannaanida iyo xorriyadda iyo horumarka iyo midnimada aynu gaadhnay aan wada ilaashano ka seexasho ma leh midnimadaynuu asno xididadaynuu dheeraynay kuma ekaanaysee waa la dul joogaynaa maalin walba budka iyo warankana waa ku ilaalina marka waxaan leeyahay mudane madaxweyne iyo madaxda kale heer qaran iyo marti sharafka mid shisheeye iyo mid dalkaba waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin
sharifaadda ah munaasibadan caawa nagu soo sharifteen ee nagala qayb gasheen ee wanaagga nala siiya jiritaanka nala jeceshiin aad baanu idinku mahadnaqaynaa aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa waxaanaanu jecel lahay inaydin idinkuna sidaa nagulayna waa dowlad curdinaanu nagana wargeeyo inaannu wax qabsannay naga wargeeya wixii qabyaana inay nala dhammaystiraan inaan nala dunida gaadhsiiye waxayla tahay wax dambeeye maadhina raggii iga horreeyaa dhameeyey rag iyo dumarba waxaa dhameeyey kooxii caawaalka ina maaweelinayey waxaa markhaati u ah ciidamadii saaka maray waxaa iyaguna u ah cududna waxaa u ah dadweynaha reer somalilan aan wada ilaashanno aan wada ilaalinno hanagu hadlaynina hareeraha nala qabta madax iyo madaxweyne iyo madax kale midnaa ku hadlaynina tiinna weeye ahlan wasahlan aad baa u mahadsantihiin mar labaad ilaahay maalinta 18 Meey haynooga dhigo tii soo noqnoqota si barwaaqo iyo midnimo iyo wanaag inoo soo noqnoqota aad baa u mahadsantihiin